أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم أنا الابن الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan Allah idin dhowro. dhulkeeni hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo, amnigiisa iyo amaankiisana Allah sugo. waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee dhaxalkii rasuulka suuban sallallahu alayhi wa sallam ee inooga imanayay madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عاونا وحلقديسي أفراد مركب برنامج كينو حفظ الجميل إن لا دورو أو لا إلاليو وناقا نولوشينا لينو جيستي قعنتا نولوشينا لينو جيستي دادكي نولوشينا سو قرب استاقي يرانتيني إلى يومانتا دادك دائما نو هيلان فرحدنا نلو ذاقا مروكتنا نلو ذاقا wanaaga ay noo sameeyeen oo ay noo soo garab istaageen sidaanu ugu ilaalin lahayn inaan u ilaalino u xifdino kadibna aan u gudno marka aanu awoodno marka wax wanaag loo ilaaliyo waxa ugu horeeyo waa waalidka maadaama nolosheenu waalidku leeyahay khaasatan hooyada أنما هنا رسول كاسي صلى الله عليه وسلم مركو سدح دجار نك صحابيها أو كل حي هو يدا كدبنا آبها مرك أصحاب ويكبحين مش أصحابي سوشيال ميديا دلان لأقونني جني كان أن لأركينني ماركتا الشياطين تان أن لأركينني سوشيال ميديا شب اسكا صوتها وقتيني لوميي waxaad ogaanaysaa markaa nolosheenu inaanay waxba kula hayn waqtiga iyo xooga iyo xoolaha aynu ku bixinaynaa dhulmi inuu yahay oo aynu ka dulmayno dadkii noogu qaalisanaa nolosheena waalidkeen khaasatan hooyo walaalayaal wanaaga loo gudayo hooyo iyo aabe wanaaga waalidka loo gudayo way mudan yihiin nolosheenay leeyihiin adduunka iyagaana keenay ilaahay ka sokay haddaanay iyagu jiri lahayna ma aynan iman lahayn adduunkan ilaahay garanayay xaqa waalidka qadarka ay agteena ku leeyihiin iyo sida loogu gudayo gacanta wanaagsan yaa ilaahay garanayay baa inoo sheegaya wuxuu ina leeyahay war haddaad doonaysaan dad yahow dhagihiinu ma furan yihiin laabtiinu ma ii dulashaa yah haddad yahow ma doonaysaan gacanta wanaagsan ee ay waalidku idiin geysteen yaraantiinii xataa ka hor inta aydaan dhalanin ilaa iyo maanta bal ilaa aad ka dhimatid ya inaad guddaan ma doonaysaan inaad celisaan wanaagga intaad u kaydisaan waalidka inaad celisaan ma doonaysaan ilaahay baa inoo sheegaya wuxuu leeyahay wabilwaalidayni ixsaana waalidka u ixsaan fala u sameeya waalidka wanaag u sameeya ixsaan u sameeya adiga maxaa laga rabaa adiga waalidka qaabkii aad ula dhaqmi lahayd hadduu ku wanaajiyo iyo haddii uu ku xumeeyaba allah kuu sheegaya haddaad marka mu'min haddaad tahay dood kama keeni kartid ya kamana hor imaan kartid soo ma garan mana diidi kartid hadalkaagu waa in uu noqdaa marka wax lagu amro wax lagu diido samicnaa wa atacnaa sifadaasaad leedahay haddaad mu'min tahay gacanta wanaagsan ee aad u gudaysid hooyo iyo aabe ya ilaahay baa kuu sheegaya haddana oo ku dhahaya eeg anishkur lii waliwaalidayk igu shukriya aniga ii mahad celiya cashan waa idin abuuray waan idin irsaaqa waad ii baahan tihiin adduun iyo aakhirad ii baahan tihiin bal laxdo walba laxdo ilbiriqsi walbaad ii baahan tihiin igama maarantaan haddaan ka baxa noloshiinana waad baaba'aysaan oo waad kharibaysaan joogi maysaan adduunkan haddaan noloshiina ka baxa maadaama aad igu tiirsan tihiin ii mahad celiya
waalidkiinana wuu idin dhalay, wuu idin dhaqay, wuu idin dhaqay ilaa imaantana wuu idin ilaalinaya, isagaa mas-uul idinka ahe xooggoodii iyo xoolahoodii iyo caqligoodii iyo maaragtay wax walbay idiin horeyne ku shukriyo u mahad celiya. ogaadase mahad celintan aad aniga iyo waalidiintiina aad u mahad celinaysaan annagu intifaaci maynee idinkay idiin soo noqonaysaa buu leeyahay alle. lain shakartum laaziidannakum. ha ilaawina qaacidada, qaacidada ayaan la ilaawin. marka igu shukriya aniga iyo waalidkiin, khaasatan hooyadiin, si aada ugu mahad celiya. u dhowaada hooyadiin, garabka u raariciya hooyadiin la saaxiiba, ha ka bixina noloshiina, hana ka fogaanina hooyadiin. haddii aad marka taladaad diidaan oo gacantaa wanaagsan aad u celin weydaan waalidka, waxaad ogaataan anoo ilaahay ah ayaa ilaya almasiir uu noqonayaa masiirkiin iyo halkaad u laabanaysaan. anaad iisoo laabanaysaan. adduunku waa 2 beri. 2 beri oo aad gaajoonaysid, oo aad oomaysid, oo aad haraadaysid, oo aad maaragtay aradaysid, oo aad aradaysid, oo aad maaragtay jiranaysid, oo aad murgaysid, oo aad walwalaysid, oo aad dhiboonaysid. ma adduunkaani raaxa jirta? 2 berina dhib baad ku dhamaysan. adigoo caasi ah, dhal ibliis ah, ayaad iisoo laabanaysaa aniga. halkee ku dambaysa marka? xaggeed sugaysaa? jahanamaad sugaysaa. marka ilaahay wuxuu diidan yahay waa taa. adduunkan inaad ku dhibootid lama ogola, aakhirana inaad cadaab geshid lama ogole. waa jannaad gelaysaa. mu'minka sidiisuba jannuu leeyahay, muslimka jannuu leeyahay, aakhiro jannuu leeyahay. ilaya almasiir. xaggaygu ahaanayaa meesha loo noqonayo. masiirka iyo meesha laysugu imanayo, meesha loo wada noqonayo waa xaggayga. qofkii warkayga maqlay oo qaatay oo waalidka ixsaan u sameeyey, ixsaan kula dhaqmay, ku shukriyo, u mahad celiyey, jannu galaya. jannu galaya. aayado badan baa sheegaya, waynu arki doonaa maanta, soo ma garan. marka ilaya almasiir, kii diidaana dee haawiyuu gelayaa. hooyadii xagga waay, fa ummuhu haawiya. hooyadii hadduu adduunka ku caasiyo, hooyo khatar aha jirto kaa dambaysay la soco. hooyada haawiye la yiraahdo, fa ummuhu hooyadii midda laabta gashanaysa oo gollanka gashanaysa oo maaragtay gubayso gamaarinaysa waa haawiye ayaa la yiri. haawiye waxa gelaya oo ay hooyo u noqonaysaa dadka adduunka hooyooyinkooda ka fogaaday la soco. yani kaa hoos bixin. dadka hooyooyinka adduunka ka fogaada, oo hooyooyinka caasiya, oo hooyooyinka warkooda maqli waaya, ixsaan u samayn waaya, la saaxiibi waaya, farxad gelin waaya, hooyada kolkoolin waaya. oo adduunka hooyada ka fogaada, hooyadii waa haawiye. fa ummuhu haawiya. khali baalkum, iska ilaaliya. iska ilaaliya. marka ixsaankan, wanaagan waxaa leh waalid oo dhan, haddii uu yahay muslim iyo haddii uu yahay gaalba. ixsaanka waxaa iska leh oo loo samaynayaa waa waalid baa la yidhi. lama kala saarin gaalkooda iyo muslimkooda, lama kala saarin. waa kii aayaddii kale ay ahayd, wasaaxibhumaa fi dunya macruufan. haddii uu gaal yahay waalidka, waxaadan ku ateecinin waa macsida ilaahay. shirkiga ku ogolaan maysid. hadday doonaan in ay diintooda ku geliyaan, hadday doonaan in ay maaragtay khadka kaa saaraan, aad ilaahay ku caasidid, taa laa, falaa tudichumaa ayaa la yidhi. maya, lagu ateeci maayo waalidka taa. maxaa yeelay wuxuu galay xaq uusan lahayn buu markaa rabaa inuu qaato. dhaalim buu noqonaya waalidka. ma lagu ateecayaa? maya, macsidii shirkiga lagu ateeci maayo. laakiin adduunkan waad adeecaysaa. adduunkan waad la saaxiibaysaa, wanaag baad u samaynaysaa. ixsaankii wuu kugu leeyahay waalidnimo adduunka intaad ku nooshahay. wasaaxibhumaa, la saaxiib hooye iyo aabbo, waa kuwii gaalada ahaa.
في الدنيا معروفا سي وناكسا معروف يعني وامحي ووحى إلهي راليغا وكيهي يا أنا كجلينين أنا حدك كاسارين إلهي أن عارجلينين كوا لو أطيع مايو لكن معروف الرا مركا يضع وادو أذيجيسا وادو قبينيسا واد سينيسا واد فرحت جلينيسا واد ماركتاي أرتريسا واد علوش دبوحنيسا واد يا وريح ريحيسا واد سيحنيسا سبتال بتجينيسا و ها واد نودعينيسا اسكا إلهي واد نودعيني حاس ودعينيسا وحاول دعينيسا هنون إنه إلهي سو هنون لكن الحمد لله والدين تين ودن ووضع مسلمين إلهي وحان كبرجي والدين تين ودن يومدينا وإنه الدين إيمانك وقوت كي عقيدة وإلهي ولا ليال إلهي مركو إنه شيء يا وناق الله إلهنا يا والدك وناق والدك الله إلهنا يا وأقوال أفعال واي أنتوا إلهي باكو شيء ها سيداد والدك ولا حد اللي لحيت iyo sidaad waalidka ficil ahaan aad wax ugu sameyn lahayd wixii oo dhan waxa inoo sheegaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay eeg qaacidadan waa qaacido guud weeyaan maxaa iga reeban inaan dhaho waalidka maxaa ii banaan inaan dhaho waalidka qaabkii loola hadli lahaa waalidka ayaa ilaahay ku baraya subhanahu wa ta'ala Allahu akbar ومدرسة محمد ومدرسة تعليمي او إن بريسا قابك أن أولما عاملينه ددكي وقلوا وقلنا قالي سنة إنه لشي نقا صوغلا او أهوالدك وحلو يري فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما حدهم بالو يرهوي إعابو أف حدهم أف واللغة عربيت بمعنى marka lagu yeero adigoo daalan adigoo internet ku jira adigoo asxaab la maaragtay faqaya markii hooyo miskiina email kaaga dhawaaqdo waadna daalan tahay hadhiin baa lagu yiri hadhiin marka dhaysid adoo qoslay ma dhaysid horta lacanada wajigaaga fuulaysa wax lagu diiday hatta duqbad noqone saa wajiga u kaduudaysid aad u cabuusaysid qam tariiran aw noqonaysid يا وحالة فير على مركبة إنا لله وإنا إليه راجعون ووجه إبليس بديالنا يسا مركبة هدهم بالو يري مركز وجهك كدودت وحد أد كدودت سوقشتت حدد أد يريست أو أد سو أرورست سو موجد واحد دقايا ونجد الجركايا وحواي شقد حوق وقبنايا واحد دقايا دقني من هذا كوسو دقايا سو موجد وجهنا لعنت با كافوليس marka iyada laakiin lama rabo cimrigaaga xataa uu soo gaabanaya ila soco waxa lagu leeyahay hadhiin uf gacantii iyo wajigii iyo kadkaduudkii iyo afxumadii iyo ardaal way wada socdaan kulligood hadhiin hooyo wajigaaga waxay rabtaa hooyo inay bishimahaaga oo xiran marnaba ma rabto inay aragto bishimahaaga kala fur dhoola cadee indhaha u fur hooyo farxad geli hooyo falaa taqul lahumaa hooyo iyo aabbo falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa ha gulgulin indhaha u guduudinin sanka ha u taagin indhaha u yaryaraynin codka kor ha ugu qaadin soo ma garan wax ka nixiya hadhihin wax murug geliya hadhihin ha gulgulin hooyo dadka kale xataa waa loo diidaa sidaa iskaba dhaaf hooyo iyo aabe iska daaya falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa seen dhahaa marka haddii la dhaha gulgulin uf hadhihin iyo hadhihin codka kor ha ugu qaadin ha isu daaxuurinin hooyo iyo aabbo seen yeelaa waqul lahumaa qawlan kariima waxaad tiraahdaa hooyo iyo aabe hadal aad u wanaagsan qowl kariima qowlka kariimka waa qowlka adigoo wajigaaga dhoola cadaynaya oo ifayo qurux badan hadalka kaa soo baxa weeyaan waa hadalka markuu afkaaga ka soo baxee uurkooda uu galo ay farxayaan iyaguna ay qoslayaan oo qalbigu u ballaaranayo oo ay kaa raali noqonayaan weeyaan
markuu waalidka kaa raali noqdana waxaad ogaataa allaha kaa sareeya ee ku amraya hadalkiisa aa yeeshay inay isagana uu kaa raali noqonayo. eeg siday isugu xiran tahay. hadduu kaa raali noqdana xagee lagu xawilayaa? ii sheeg. waa jannat lfirdows. waxa la doonaya waa sida iyada ah. ficilkiina waa kan waqfid lahumaa janaaxa dhulli min araxma. allah u raarici baa lagu yiri. hooyo iyo aabbo u raarici dhankaaga jilicsan sii. waqfid lahumaa janaaxa dhulli min araxma. maxaa waaye? dhankaaga debicsan ee naxariista leh yaa sii xiji waalidka xaggiisa xiji. hadalkaaga jilcan janaaxa dhulli, hadalkaaga jilcan, fiiradaada jilcan, dhegaysigaaga jilcan, maaragtayy dhankaaga muusoodkaaga, qosolkaaga, waxqabadkaaga wanaagsan, saaxiibtinimadaada, laab furnaantaada, waqti siintaada, xooggaaga iyo xoolahaada oad ugu deeqdid. waxaasoo dhan wax kastoo wanaagsan oo xaggaaga ka imanaya waalidka sii baa lagu yiri, xiji baa lagu yiri. waqfid lahumaa janaaxa dhulli min araxma. wallahi inaanan lagu darin nin saddexaad ama qof saddexaad oo iyaga la raacinayo male. lahumaa waa labadooda, hooyo iyo aabe. waana hormarinaya hooyo daa'iman cashaan rasuulka ka hormariyey aabaha sala allahu alayhi wasalam. rasuulkeena hormariyey. marka raarici baa lagu yiri. markaad u raaricisid ood wax walba dhankaaga jilcan iyaga aad xijisid oo ficilkii ah, haddana u duceey waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira. ilaahow u naxariiso dheh. markaad ficilkii u samaysid, hooyo u adeegtid, u qabaysid, u shanlaysid, u tutuujisid, u riixdid, aad carfisid, aad u gogaysid, aad seexisid, ilaahay gacmaha u taag haddana habeenkii. allah aabbo markaad sidaa yeeshid gacmaha kor u taag. waxaad tiraahdaa mar walbo aad tukanaysid, mar walbo aad ka maqan tahay, u ducee. waxaad tiraahdaa rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira. ilaahow hooyo iyo aabbo u naxariiso. ilaahow u naxariiso sidii waxaad ugu naxariisataa markii aan yaraa ay iigu naxariisan jireen, sidii ay iisoo rabaayadeeyeen, iisoo barbaariyeen. ilaahow u naxariiso. ilaahow u naxariiso. allah intaasoo dhan haddaa u qabatid xaqoodii ma gudde maye. inta aad nooshahay 100 sana haddaad nooshahay oo aad sidaa ugu naxariisanaysid waalidka, waxa waaye har iyo habeen aad u duceynaysid ma gudi kartid xaqooda. thats why lagu leeyahay wabilwaalidayni ixsaanan. si wanaagsan oo ixsaan ah kula dhaqan waalidka waa ka lagu leeyahay. walaalayaal waa kan xadiis muttafaqun calayhi ah, bukhaari iyo muslim ay soo saareen. ibni mascuud baa rasuulka ka warinaya sala allahu alayhi wasalam. anaa su-aalay buu leeyahay xabiibka, ku sale xabiibkaaye sala allahu alayhi wasalam. anaa su-aalay. maxaad su-aashay? camalkee ilaahay ugu jecel yahay? ayu lcamali axabu ila allah. ilaahay falkee ama shaqadee ama camalkee ayuu ugu jecel yahay ayaan ku eri buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam. wuxuu yiri as-salaatu ala waqtiha, waa salaada oo waqtigeeda la tukado. qultu thumma ayu, kadib maxaa ku xiga? qaala biru lwaalidayn. kadib buu jihaadka keenaya. ka koowaad salaada waa xaqi ilaahay, laakiin xaqa ku xiga waa maxay? soo maahayn wabilwaalidayn ixsaanan, haddana waa biru lwaalidayn. allah so biriga waa maxay? biriga waa waalidka inaad ixsaan kula dhaqantid, waa inaad maaragtay aadan guulguulin, waa inaadan uf iyo 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 aadan dhihin, waa in maaragtay aad adduunkan wanaag kula saaxiibtid, waa in garabka aad u raaricisid, waa inaad u ducaysid. waxa kan oo dhan aad qabanaysid maxaa lagu amrayaa? yeel ha yeelin oo lagu leeyahay عشان عمل كان إلهي أو كفرية كو آدم والدك وعملك أدونك أو لن أقصر ريو إلهي أوجع البدنيا يواي عشان سلوجيو جنة أدونك جنة أقصر ريس جنوين كجنة الفردوس سلوجيو وبر الوالدين ننكن أو إيمان يا رسول صلى الله عليه وسلم أنك يمن دول آد أفك أيوك إيمان يا
rasuulku wuxuu leeyahay waxaan rabaa ajir baan rabaa jihaad baan rabaa waana waqtigii loo baahnaa dhalinyarada loo baahnaa xoog loo baahnaa ya labalafood loo baahnaa weeyaan ninkana uu imanaya markaasuu leeyahay waxaan rabaa inaan kula mubaayacoodaan doonaya jihaad baan doonayaa inaan kula galo waxaa la leeyahay axayun waalidaak axayun waalidaak waalidiinta ma nool yihiin hooyo aabba ma nool yihiin haabuu leey way nool yihiin muxuu dhahayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka jihaadka waa camalka saddexaad ee ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka horeeya biru lwaalideyn ninkana wuxuu rasuulku weydiisanayo waa camalkaa saddexaad weeyaan marka rasuulku wuxuu rabaa inuu ogaado sal allahu alay wasalam kii labaad inuu ka soo baxay iyo in kale waa garatay marka xaqii labaad isagu xaqii saddexaad buu rabaa inuu weydiisto laakiin xaqii labaad baa rasuulka uga weyn oo uu leeyahay war xaqii labaad horta ma ka soo baxday ma nool yihiin waalidka wuxuu yiri way nool yihiin fa fiihimaa fajaahid soo qabaa la yiri xaqaa oo ka soo bax ku soo jihaad iyaga ku jihaad adeegooda ilaa jihaadku waa badan yahay waa nooc aad u fadli badan noocan birulwaalideynka ah ku soo jihaad usoo adeeg baa la yiri iyaga waalidkaaga ku jihaad adeegooda ku jihaad qabayskooda ku jihaad ya dhar xirkooda ku jihaad oo shanlayntooda ku jihaad hadalka aad u wanaajisid ku jihaad hadalka xun aad ka ilaalisid ku jihaad inaad farxad gelisid ku jihaad in aad wehel u noqotid ku jihaad waa badan yahay ma gudi kartid weliga ay daa'inkaa haddaad hooyo iyo aabe aad hoos joogtid oo aad u adeegaysid wallahi inaadan gudi karin xaqooda fa fiihimaa fajaahid kusoo jihaad baa lagu yiri mid kale ayaa haddana u imanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagana sidoo kale jihaad buu rabaa wuxuu ku yiri sala allahu calayhi wasalam ninkii hooyadaa ma nooshahay haa buu yiri way nooshahay maxaa la yiri marka falzamha faina aljannata taxta rijlayha allah waxaa la yiri laazim yani ku jihaad sidii kii hore oo kale war laazim u noqo hooyo laazim nolosheeda ha ka tegin ha faaruqin hooyada ha faaruqin ilaa aad ka dhimatid agteeda joogo u adeeg sii waktigaaga sii oo cimrigaaga sii oo sii xoogaaga oo xoolahaaga sii farxadaada sii wehelkaaga sii wax walba oo wanaagsan oo aad haysatid sii af iyo adinba falzamha faina aljannata taxta rijlayha jannadaada jihaadkan kuma jiro madiinana kuguma hay orodoo yemani xaggaa meeshaad ka imaaday ku laabo agteeda ku dhimo faina aljannata taxta rijlayha jannada hooyadaa hoosteeda ku jirta bimacnaa raalli ahaanshaheed aad ku helaysid laazim taasaad gelaysaa oohin hooyo aad ka oohisay waa maxay wanaagga aad ka helaysid waa maxay hooyo aad ka carartay wanaagga aad ka helaysid ya khayrka aad sugaysid waa maxay wallahi inaadan khayr helaynin malcuunna aad noqonaysid laga bilaabo maalinkaa hooyada aad ka oohisay ilaa aad ka dhimatid bal weligaa idaa'inkaaba khasaare inaad ku jiraysid soo lama dhihin khaaba wa khasir kuma celcelina rasuulka waxaa khasaaroo hoogay qof labadiisii waalid ama midkood intuu soo gaaray aan loo dembi dhaafin carada hooyo waa carada alli iyo rasuul sow ma ogid farxadooduna waa farxad alli iyo rasuul sow ma ogid war iska ilaaliya waalidku ciyaar maaha waalidkaad ka tegaysaan iska daaya oo la jooga waalidkiina maaragtaayo u adeega yaan idinkii waalidiintiin yaan marnaba lidinkala dhex gelin yaan lidinkala fogeynin yaanu wadaad xume yaanu idin fatwoonin raadi culimada rabbaaniyiinta culimada xambaarsan dhaxalka rasuulka culimada ilaahay raalliga ka noqday warathatu lambiyaa kuwa dhaxlay rususha kuwa isku xiraya ubadka iyo waalidiintii kuwa reeraha isku xiraya kuwa ummadda midaynaya kuwa ummadda naxariista iyo raxmadda u ah
kuwa iyaga ah ka fatwa qaado shayaadiintan kitaab gaabilooyaalka wadaad xumayaalka marnaba haka maaragtay haka fatwa qaadanin waxna ha weydiinina war kala barta culimada kala barta see u kala baranaysaan dee idinku wax barta wax barta ka bax jahliga iyo caamada si aad wax u qiimaysaan u kala saartaan dadka aad wax weydiinaysaan iyo dadka kale maxaa nooga badan maanta culimaa rabbaaniyiin maxaa nooga badan culimada yaa rabbaaniyiinta ee ilaahay yaa uu ku manaystay ikhlaaska iyo cilmiga iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan yaa warathatu al-anbiyaa ee cilmigan xambaarsan maxaa maanta nooga badan dal iyo dibadba waalidku xoogaagu leeyahay xoolahaagu leeyahay waqtigaagu leeyahay wax walba wanaagsan oo aad haysatid waalidka iska leh isagaa kuu yeelay jiritaankaagaba isagaa lahaa ilaahay ka soke ha u xisaabinin marka waxaan la yaabaa yaa mar walbo aan arko insaan 20 jir ah 20 jir 20 sano waalid baa soo korinayay iska dhaaf uurkii iyo dhaliinkii iska dhaaf waa 20 sano ayuu adduunka dul taagan yahay waxaa la soo geliyay xoog iyo xoolo hooyo iyo aabba soo geliyay masaakiin ah waa la soo koriyay waa la soo huwiyey waa la soo dharjiyey waa la soo haraatiray oo la soo maaragtaayay aratiray yaa waxbaa la soo baray waalidkiibaa xooggoodii iyo xoolahoodii iyo waqtigoodii soo geliyey 20 sano markuu la ekaaday yaa oo uu jaamacadihii xataa uu dhameeyey yaa maxaa loo baahnaa ilaah baa ku dhaariyey ilaa kulamaa adigu xoog aad yeelanaysid oo aad weynaanaysid oo aad waxbaranaysid waalidku waa si daciifaya soo ma ogid waalidku wuxuu ku dhalay wiilkaagan iyo gabadhaadan isoo eegaya waalidku wuxuu idin dhalay iyagoo tima madow waagii aad dhalinaysid timahooda waa madoobaayeen maanta aad 25 30 sano jirtid waalidkaaga fiiri waalidkaa wuu ciraystay ciro hooyo way ciraysatay aabbo wuu ciraystay xooggoodii ma leh way taag dareeyeen way soo goteen way daciifeen lafihii baa jilcay indhihii wax kama arkaan dhegihii aad wax ugama maqlaan talaabadii dheereed way soo gaabatay awe xooggoodii adigaa lagu geliyey xooggii adigaa qaatay markaad la ekaatay intaa oo aad wax lagu baray wax walbo wanaagsan oo ay lahaayeen ay ku siiyeen maxaa loo baahnaa diin xagga naga dhig maxaa loo baahnaa caqliga wanaagsan caqligan ilaahay ku siiyey xoolaha kaaga duway yaa maxaa la rabaa inuu garto inaad u gelisid wanaagii inaad u ilaalisid waa dadkii noloshaada lahaa ya waa dadka kugu qaalisan noloshaada insaan soo galo insaankii ugu qaalisanaa weeyaan maxaad u samaysay maxaa loo baahnaa wanaagan iyo gacantan wanaagsan ee 20 30 sano ay ku gelinayeen inaad u ilaalisid maalinkay u baahan yihiin inaad siisid ya soo maaha إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف سو ما هاي وهذيك هقول قولين الدعاء هذا الوناكسن ده قرب كدنا عجران أرارعي سو ما هين لا صاحب وحول باو أي أباهين سي سو أمرك إلهي ما هين ما أقبت إلهي بانكو دار شيء ما أنتو أباهين ما حد سميسي مركا أديك marka aad 30 sano gaadhay ee aad jaamacadii ka baxday iskaba dhaaf in aad u celisid waad kala fogaatay maalinkii ay kugu baahnaayeen maalinkii ay ugu dareeday ku baahnaayeen hooyo iyo aabbo da'si noqonaya oo daciifay kugu baahan ayaad ka dhaqaajisay waxaan la hadlayo waa gabadhaada gurigeedii ka tagtay hooyadeed ka fogaatay aabbaheed ka fogaatay wiilkaagan adiga adaan kula hadlaya yaa ka fogaaday reerkoodiiyo ka soo tahriibay oo kaba soo fogaadayba waa maxay markaa kadib khayrka aad sugaysid markaad ka fogaatid jannadaadii fa fiihimaa fajaahid yaa markaad ka fogaatid ku jihaad kuwii lagu yiri yaa u adeeg kuwii lagu yiri كوي لو يري فالزمها فإن الجنة تحت رجليها لازم او أجوك هكتاقين او أديغو او شقاه يا
jannada agtooda hoostooday kuu taallaa kuwii lagu yiri markaad ka fogaatay ya waa maxay khayrka markaa kadib aad sugaysid mustaqbalka aad raadinaysid ya nolosha wanaagsan ee aad raadinaysid wallahi inaadan helaynin ثم والله إناذا نولل في عن هلينين مستقبل في عن هلينين قر في عن هلينين أولاد في عن هلينين حلالك الدغضاء أو بركيسان آذن هلينين يا انت هويو اي آبو اي كاات كفوك تاهي او اي مرقيسين يهين انت مرقيسين يهين انت كو عريسين يهين انت كتبيان ويكاول وليان ويكرادين يان والله إناذا دقينين inaadan xasilaynin inaadan mustaqbal iyo guri iyo fadhi iyo wax wanaagsan aadan helaynin abadan adduunka kelimiya aakhira kaaga daran wallahi aakhira kaaga daran ana ku sheegay hooyo iyo aabbo ka careysan macnaheedu ilaahay iyo rasuulkiisa ka careysan waay adduunka xataa khaatam xuma uga baxaysa shahaada la'aan baad uga baxaysa iyaga halka kugu dhigaya war u soo laabo hooyada usoo laabo yaa usoo laabo hooyada usoo laabo usoo laabo aabaha usoo laabo gurigiini usoo laabo walaalaha usoo laabo waalidka usoo laabo ilaahayna wuxuu leeyahay wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha xumaanta abaalkeedu waa un xumaan haddaad waalidka maanta xumaysid oo aad ku xumaysid inaad ka fogaatid inaadan la soo hadlin telefoonadii ka xiratid xoogaagii iyo farxadaadii iyo xoolahaagii iyo waqtigaagii aad kala dheeraatid ya haddaad waalidka ku xumaysay intaa keliya ku sugi maysee intaa laba laabkeed bal 10 laabkeed baa ku sugaya ilmahaaga adigana kaa goynaya bal dadkaad u tagtid baa kaa goynaya dadkaad maciinka iyo gacalka iyo maaragta xigtada aad mooday ee aad la nooshaha ayaa kaa goynaya bal adduunkana kaa goynaya waayaha kaa goynaya derbi baad ahaanaysaa khatab xumaad ku dhiman cadaabun waad gelaysaa waad inooshahay waad imaqlaysaa walaalkaabaan ahay adeerkaabaan ahay abtigaabaan ahay dariskaabaan ahay waa ku jeclahay sheekhaagii baan ahay wax walbo wanaagsan baan ku ahay ya qalbi ku jecel ayaan ahay usoo laabo gurigaaga soo usoo noqo oo toobadkeen war gabdhaha iyo wiilasha reerahooda ka tagow soo laabta usoo laabta diintii ilaahay rushdiga allah idiin soo celiyo usoo laabta reerihiini waalidkiina iyo halkii jannadiinu jirtay caawa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما وميض الحب ألبسني حنينا